Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada casharkeenii afraad ee HTML-ka. Casharkan maanta waxaynu kaga hadli doonaa basic HTML-kii, basic tags-ka HTML-ka. Waayo casharkii ka horreeyay waxaynu soo sharaxnay HTML structure-ka ama terminology-gu ka kooban yahay basic tags-kiisu oo aynu nidhi terminology-ga waxaa la isticmaalaa maxay elements ama tag. So tag iyo element waa laba eray oo qoraal ahaan kala duwan laakiin waxaynu nidhi waa isku macne. So maanta insha Allah practice ayaynu samayn doonaa iyo qaybuhu u qaybsamo basic-gu. So marka u horeysa waxaynu u baahanahay ama waxaad fahantaa haddaad programmer tahay oo doonaysid inaad code qorto project samaysid. Shardiga koowaad waxa weeyaan inaad folder samaysatid. Marka u horeeya waxaynu samaysanaynaa folder. So marka hore waxaynu odhanaynaa right click new folder, kadib waxaynu u bixinaynaa folderkeena HTML chorus markaynu folderkaas samaysano waxaynu samaynaynaa inaynu Sublime text editor-keeni soo furno, kadibna waxaynu tegaynaa file, waxaynu ku dhufanaynaa meesha ku qoran tahay open folder, kadibna waxaynu tegaynaa desktop, kadibna waxaan raadinaynaa folder project aynu samaysanay oo magaciisu ahaa HTML chorus. Dadna waan click garaynaynaa, kadibna waxaynu ku dhufanaynaa buttonka select folder. So sidaad arkaysaanba text editor-keeni waxa dhinaciisan bidix inoogu soo furmay folderkeeni ama project folderkeeni oo ah maxay HTML chorus. So si aynu u samayno page-keeni HTML-ka ahaa waxaynu u baahanay inaynu folderkeena dushiisa tagno, inaynu nidhaahno right click new folder, kadibna aynu nidhaahno click file, save the file. So waxa shardi aynu nidhi shayga HTML-ka page-ka HTML-ka markaan samaynayno waa inaynu ku save garaynaa extension file-kiisa .html ama .htm waa isku mid. So aynu ka dhigno .html. So page-ka magaciisa waxaynu u bixinay index.html. So enter markaynu nidhaahno sidaad arkaysaanba folderkeeni waxaa ku dhex jira imaka hal page oo magaciisa la yidhaahdo index, extension file-kiisuna uu yahay HTML file. Si aan code-ka u qoro HTML tags-ka ama elements-ku markaad doonaysid inaad qortid waxay ku bilaabmaan angle bracket. So computer-kaaga waxaad qabanaysaa shift key and then angle bracket, kadibna waxaad taabanaysaa tag-geeni ugu horreeyay ama elements-kii ugu horreeyay HTML-ka oo ah HTML, kadibna angle bracket. Hoos baad uga degaysaa casharkii ka horreeyay. Casharkan waxaynu nidhi tag kasta wuxuu ku bilaabmaa open iyo close. So imika waxaynu qornay HTML elements open tag open ama HTML tag open tag. So waa inaynu xidhnaa. So waxaad taabanaysaa angle bracket, kadibna / then HTML then angle bracket. So sidaad imika arkaysaan haddaan mouse-ka ku dhufto xariijin yar buu hoosta iga marinayaa, taasoo macnaheedu ii sheegaysa inuu tag halkan ka furan yahay HTML tag, inuu HTML tag-una halkan ka xidhan yahay. sidoo kale casharkii ka horreeyay waxaan soo sharaxnay in HTML basic structure tags-keena ama elements-keenu ay u qaybsamaan ama page-keenu caadi ahaan uu qaybsamo laba qaybood oo waaweyn ama two main section. qaybta koowaad waxaa la yiraahdaa head section oo waxa la isticmaalaa head tag ama head element. qaybta kale labaadna waa body section oo waxa la isticmaalaa maxay body tag sida halkan ku arkaysan. So basic structure-ka HTML-keenu intuu ka kooban yahay. So mar walba waxa u sareynaya maxay HTML tag, waxaana ugu dambeynaya halka u dambaysa ka xidhan maxay HTML tag. HTML tag laba qaybood oo waaweyn buu qaybsamayaa oo ah maxay head section iyo body section. So qaybta head section-ka waxa la isticmaalaa maxay head tag, qaybta body section-kana waxa la isticmaalaa maxay body tag. So haddaad doonaysid body-ga inaad wax ku dhex qorto waa inaad tagtaa open body tag-ga iyo close body tag-ga inta u dhaxaysa. haddaad doonaysid head section-ka inaad wax ku dhex qortana waa inaad tagtaa inta u dhaxaysa open head tag-ga iyo close head tag-ga. So tag-ga lagu dhex qoro ama qaybta section-ka head section-ka tags-ka lagu dhex qoro waxaa ka mid ah title tag oo loo isticmaalo tab-ka ama page-kaad isticmaalaysid ama page-kaaga title-kiisa.
oo tusaale ahaan wuxuu ka soo muuqdaa marka browserka lagu furo waxa loo yaqaano browser tabka ama tab browserka. So tusaale ahaan haddaan halkan ku qoro imanka html first page on save idhaahdo oo aan right click idhaahdo si aan browserka ugu furo, waxaan ku dhufanayaa ama waxaan click garaynayaa maxay open in browser. So markaan browserka ku furo title-kayga maxay xagga yar ee sare ee muxuu hayay Google Chrome tabka ama tab window-ga tabka soo garamaysan calaamadayna plus haddaan ku dhufto maxay soo kay furaya, it means waxa ii furmaya new page ama new tab ama new window. So page-kaaga browserka page-kaad ku furtay title tag wuxuu ka soo muuqdaa qaybta sare ee browserkaaga muxuu hayay tabkiisa sidaynu halkanba ku arkayno. In body section-kana waxa lagu qoraa waa waxa ka soo dhex muuqda muxuu hayay main page-kaaga. So imanka haddaynu main page-keena sidanu eegno, main page-keena waa kan cad, wax aliyaala wax ku dhex qoran ma jiro. So wax aliyaala waxa main page-kaaga ka soo baxa waxa lagu dhex qoraa maxay body section-ka ama body tag-ga dhexdiisa. So haddaan imanka heading tag isticmaalo oon halkan ku qoro welcome to first html page on save idhaahdo oon aadir browserkii ku noqdon refresh idhaahdo, sidaad arkaysidba now waxa ii soo baxay maxay ku soo dhawow page-kii ugu horeeyay html ama qoraalka tagaska farta waaweyn ee madooba ay soo baxday oo ah heading 1 ama heading text. So waxaynu nidhi head section-ka iyo body section-ku waa labada qaybood. So page-keenu wuxuu u qaybsamayaa labada qaybood oo waaweyn, head section iyo body section. Head section-ka waxaa la isticmaalaa head tag, body section-kana waxaa la isticmaalaa maxay body tag. Haddaba su-aashu waxay tahay maxay ku kala duwan yihiin? Waxay ku kala duwan yihiin in wax aliyaala wixii la dhigo ama tagiska dhammaantood lagu dhex qoro head section-ku waxa la yiraahdaa kama soo muuqdaan main page-ka ama page-kaaga qaybtan viewable-ka indhahaagu qabanayaan qaybtan imanka qoraalkan ku qoran yahay cad ee page-kaaga kama soo muuqdo wax aliyaala wixii lagu dhex qoro maxay head section-ku laga reebo title tag oo loo yaqaan mandatory tag oo ka soo muuqda meesha loo yaqaan tab bar-ka ama Windows tab-ka ama oo sheegta maxay page-kaaga title-kiisa ama title-ka magaciisa iyo sidoo kale maxay icon image-ka haddii xagga la geliyo waka ka soo baxay. So marka waxaan oran karnaa head section-ka iyo body section-ka waxay ku kala duwan yihiin. Wax kasta oo body head section-ka lagu qoraa kama soo muuqda maxay main page-ka ama waa invisible. wax aliyaala wixii lagu qoro body section-kuna waa waxa main page-ka ka soo baxay sidaynu imika arkayna qoraalka. So saasay u kala duwan yihiin. So waxaan rajaynayaa inaad si fiican u fahanteen basic structure tagiska ama elements-ka html-ka. So cashirka xigeentan ku kulmayno waxaan idin leeyahay practice wanaagsan waad mahadsantiin.